bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada barasho online. maanta waxaan rabaa inaan falanqeyno hoos u dhaca ama khasaaraha ku yimid shirkadda Facebook oo wajahaysa khasaarihii ugu weynaa ee hal maalin soo wajaha. sida caadiga ah ganacsigu waxa uu leeyahay faa'iido iyo khasaare. ha yeeshee Facebook waxaa la sheegay inay millions ama billions of dollar ay khasaartay hal maalin. inta aanan sheegin khasaarahaasi ka hor waxaan rabnaa inaan dhowr su'aal iska weydiino Facebooka. halkaad naga daawanaysaan waa channelka barasho online. khasaaraha Facebooka, taariikhda Facebooka, goormee la aasaasay Facebooka, khasaaraha soo gaaray intuu la eg yahay, wadamada khasaaraha keenay ama ka yimid waa wadamadee ama waa qaaradahee, maxaa keenay khasaaraha, iyo metaverse muxuu yahay. su-aalahaas ayaa iska weydiin doonaa waxa loo yaqaano khasaaraha ku yimid shirkadda Facebook. ugu horeyn aan isla fiirino taariikhda shirkadda Facebooka. shirkadda Facebook waxaa aasaasay ninkaas la yiraahdo Mark Zuckerberg oo taariikhdu markay ahayd 2004 ayaa la aasaasay shirkadda Facebook. waxa ka horeeyay shirkado kale oo waaweyn oo sida Google-ka iyo shirkado kale oo caalami ah ayaa jiray. ha yeeshee waxa ay si degdeg ah kula wareegtay dunida internetka. haddana waxay wajahaysaa khasaarihii ugu weynaa abid ee soo wajaha company ama online-ka ku shaqeeya. qodob kale markaan eegno shirkadda Facebook waxay wajahaysaa la yiri khasaarihii ugu weynaa ee abid. Facebook loses users of first time in history. Facebook ayaa khasaarisay isticmaalayaashii ugu badnaa abid taariikhda inta la hayo. sidoo kale waxaa la yiri Facebook parent Meta's stock suffered its biggest single day loss yet as company refocuses on metaverse. shirkadda waalidka u ah Facebook waxaa loola jeedaa metaverse. markii hore magaca wuxuu ahaa Facebook, ha yeeshee waxaa laga bedelay magaca waxaana loo bixiyay metaverse. marka metaverse oo ah waalidka Facebook ayaa wajahaysa ama kambanigii abuuray Facebook ayaa wajahaya hal maalin khasaarihii ugu weynaa ee abid. haddaba khasaaraha intuu la egyahay aan fiirino. sidaan hore u sheegnay shirkadda Facebook waxaa la aasaasay 18 sano ka hor oo muddo 18 sano laga joogo waa 2004. ilaa xilligaas shirkaddu kobac ama dhaqaalaheeda kor ayuu u socday. ha yeeshee iminka waxa ay sameysay falling about 500,000 of users last 3 months 2021. saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxay hoos u dhacday dad ka badan 500,000 oo isticmaalayaal ah. dadkaasoo qiyaastii 1.9 billion login each day. dadkaasoo ahaa dadkii soo login gari jiray ama soo geli jiray Facebook maalin walbo. sidoo kaleeto khasaaraha xaguu ka soo wajahay. su-aalaha isweydiinayna ayay ku jirtaa. khasaaraha shirkaddu waxa uu ka soo wajahay wadamada qaaradaha Africa, Latin America, India iyo qaarado kaleeto. sidaas darteed shirkaddu iminka waxa ay wajahaysaa khasaarihii ugu badnaa ee abid. sidoo kale waxaa leeyahay shirkaddu waxa ay hoos u dhacday 26%. boqolkiiba 26 dhaqaalihii shirkadda ayaa hoos u dhacay. sidoo kaleeto 220 bilyan oo dollar oo qiimaha suuqa ay ka joogtay ee shirkadda Facebook hoos u dhacday ama ay khasaarisay muddo hal maalin ah. sidoo kaleeto shirkaddu waxa ay wajahaysaa caqabado kaga imaanaya tartamayaasheeda sida TikTok oo isagu aad u kobcaya muddooyinkii ugu dambeeyayna dhaqaalihii ugu badnaa ama kobcii ugu badnaa sameynayo. dhanka kale markaa aan fiirino ninka iska leh shirkadda Facebook oo magacii ka bedelay sanadkan hadda soo dhammaaday ayaa khudbad 73 daqiiqo oo online ka socotay waxa uu ku sheegay in shirkaddii uu magacii ka bedelay una bixiyay metaverse. sidaas darteed kambaniga sida caadiga ah kambani walba waxaa soo wajaha khasaare iyo faa'iido intaba. haddaba shirkaddani Facebook sida aan hore u sheegnayba waxa ay khasaartay lacag gaaraysa 220 bilyan oo dollar oo qiimaha suuqa ay ka joogtay ah. haddaba qiimahani suuqa ay ka joogtay
ma jiraan kambaniyo sidan oo kale khasaare ay usoo gaartay taariikhda inta la hayo? Haa, way jiraan. Haddaba aan isla fiirino qaar ka mid a taariikhaha shirkadihii sidan oo kale u khasaaray. Sanadkii hore sanadkii kasii horeeyey 2020 shirkadda Microsoft ayaa waxa ay khasaartay 178 bilyan bishii Maarso 2020. Sidoo kale shirkadda Apple 2020 waxa ay khasaartay 182 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ah qiimaha suuqa ay shirkaddu ka joogto. Sidoo kale sanadkan hadda lasoo dhaafay 2021 shirkadda Amazon oo ah shirkad online-ka wax ku iibisa waxa iyaduna khasaartay 138 bilyan oo dollar bishii July. Sidoo kale shirkadda Tesla oo ninka milyaneerka aad wada taqaanaan uu leeyahay ama bilyaneerka waxa iyaduna ay khasaartay 140 bilyan oo dollar bishii November 2021. Haddaba Facebook khasaaraheedu waa imisa? Sidaan hore u sheegnay khasaaraha waxaa lagu qiimeeyey 232 bilyan ama 220 bilyan oo dollar khasaare gaaraya. Marka khasaaraha sida caadiga ah ganacsi walba wuxuu yeelan karaa faa'iido iyo khasaare intaba. Marka waxaan u rajeynaynaa Facebooka in ay soo diyaari doonto oo dib ay suuqa ugu soo laaban doonto. Ma laga yaabaa qiimaha suuqa maadaama hoos u dhacay shirkaddu inay hawada ka baxdo. Mudane ayay leeyihiin dadka falanqeeya ganacsiga waxay leeyihiin maya shirkaddu waxaa laga yaabaa inay dib isku soo kabto maadaama ay tartan kula jirto kambaniyo kale sida shirkadda TikTok iyo Google. guud ahaan mowduuceeni aan kaga hadlaynay khasaaraha shirkadda Facebook intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan kaga tegayaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.